السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو dhawaada mar kale iyo channelkeeni baryahanba aad ayaan u kala mashquulnay hase ahaatee seasonkii ayaa soo noqday waxaan ku jirnaa January oo maanta taariikh 1 ah Arsenal weli way ay badinaysaa waxayna u eg tahay seasonkan ama dadka qaarba ay sii saadaaliyeen inay haystaan 46% in ay maartay qaadi karaan liigan halka 40% laga siiyay in ay Man City ay qaado waxay ahaataba Arsenal hadaba ma ahan Arsenal tii looga baqi jiray ama ay Newcastle ku dhigtaa ama Brighton ku dhigtaa Arsenal miyay ka soo fakan doontaa ciyaaryahan Arsenal hadda wuxuu nin walba ku qancay ilaa gameka Man City laga gaarayo inay cid istaajin doonta aysan jirin sidoo kale suuqa Arsenal ayaa baryahanba waxa ay daba taagneed ama bilihii u dambeeyayba ciyaaryahanka Mudryk kaasoo lacagtiisu qaali tahay imikana Shakhtar Donetsk waxay ku adkaysatay in aysan aqbalaynin lacagtii ay ka qaadateen Man City ee lacagtii ay Aston Villa ay ka qaadatay Manchester City Grealish markii ay soo gadanayeen taasoo ah 100,000 ama markii ugu dhowdahay lacag 90 milyan ah ha ahaatee waxay ahaataba ciyaaryahankaas ayaa Arsenal aad u daba taagan tahay sidoo kale waxaa la sheegay Arsenal in ciyaaryahankii Darrad World Cup ka qaaday ay fiirinaysay ciyaaryahanka ah McAllister kaasoo u dheela Brighton xalayna gamekii aan dheelaynin una ku maqnaa maartay nasasho sidoo kale ciyaaryahanada Arsenal ay raadinaysa ayaa waxa ka mid ah khadka dhexe ee Danilo ciyaaryahankii mar walba waa idin kaga hadli jiray ee Brazilianka ahaa ee u dheeli jiray Palmeiras sidoo kale isna waxa marnaba aan lama ilaaban ahayn ciyaaryahankii ahaa Yuri Tielemans kaasoo isaguna warkiisa aanan la haynin hase ahaatee weli aan iska rajeynayno in Arsenal ay tahay maartay ciyaaryahan uu yahay ciyaaryahan Arsenal meel u yaallo ayna soo qaadan doonto ama January-dan dhexdeeda ama marka uu seasonka dhamaado sidoo kale Arsenal ayaa iyaduna waxay raadinaysaa difaac khadka dhexe ciyaaryahankii ay inii sheegi jiray kaasoo welibana iminka suuqa aan sida hadda aan loogu haynin hase ahaatee akhyaaray Arsenal sidee u aragtaan qaabka ay u socoto iyo qaabka ay maartay game by game ay u ciyaarayso sidoo kale Arsenal waxa cajiib ah in ayadoo Gabriel Jesus uu ka maqan yahay afartii ciyaaryahan ee ugu hore ay aad u caawinayaan teamka kuwaas oo aanan dareensiinaynin fanska inuu maqan yahay Gabriel Jesus waa Odegaard Saka Martinelli iyo Eddie Nketiah haddaba Arsenal ma aamintay imika inay qaadi karto Premier League dad ayaa waxay leeyihiin seasonkii hadda un baa 15 game laga dheelay dhowr iyo 20 kulan waa dhiman yihiin maxaa la isku dedejinayaa hase ahaatee annaga waxaan ku kalsoonahay calaamadaha ay Arsenal na tusayaan iyo positive energy-ga every game ay maartay ay soo bandhigayaan sidoo kale waxa positive ah Arsenal inay ka faa'iideysto mar walbo oo ka soo horjeedka ama la tartamaheeda uu kufo taasoo markii hore aysan sameyn jirin haddaba adigu ah Arsenal fans ma aaminsan tahay maanta in Arsenal ay Premier League qaadi doonto maadaama la islaha trust the process war process ku kalsoonaada imika ku kalsoonaatay se weli shaki ayaa kaaga jiro down the comment assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh